Waa maxay online business? Maqalka labadan eray online business waxaan badi aaminsanahay inaysan ahayn eray kugu cusub. Waxaase laga yaabaa fahamka iyo qeexitaanka aan ka haysan labadan eray inay qofba meel u joogto. Qof fahansan way u kala caddahay, qof kale meel dhexe u joogto iyo qof ay isaga qasan tahay intaba. Waxaan muuqaalkan rabaa inaan kugu la wadaago waxa uu yahay online business iyo sida uu u shaqeeyo. Erayga online oo dabcan ah erayga ugu horeeya ee labadan eray ee iswata hadaan isla qeexno waa hawl kasta oo ka dhex dhacda ama la qabto iyadoo la isticmaalayo internet iyo qalabyada kale elektarooniga sida kombiyuutarada, taleefanada caqliga leh smartphones-ka loo yaqaano iyo sidoo kale tabletyada intaba. Haddaan jilciyo oo aan si kale kuugu dhigo waa shaqo kasta oo aad rabto inaad qabato laakiin kaaga baahato inaad internet hesho ayaa loo yaqaanaa online. Tusaale inaad email dirsato, inaad Google wax ka baarato, inaad social media soo gasho, inaad xisaabtaada bangiga dhaqdhaqaaqiisa la socoto iyo wixii kale la halmaala. Haddaba waxaan 90% aaminsanahay inaad ila fahantay waxa online loo yaqaan. Bal markaan nakeen aan isla fahanno waxa uu yahay erayga business. Business dabcan naguma cusbo oo waxa maalin kasta aan ku dhex jirno haddii aan cilmi ahaan u qeexno waa wax kasta oo ka kooban badeeco oo loo yaqaan goods iyo adeeg oo isna loo yaqaan service oo qof ama shirkad ay keento suuqa iyadoo hadafka laga leeyahay ay tahay inay iibiyaan oo ay macaash ka helaan. Calaashaan haddii aad dharka ganacsato iyo raashinka amaba aad tahay farsamayaqaan waxaad ku dhex jirtaa hawsha loo yaqaan business. Sharaxaadda ila tagtay awgeed yeesan markaan ila sii dorgine online business waxaa hadda laga wadaa in badeecadaada ama adeegga aad bixinayso aad ku baahiso internetka iyadoo ujeedkuna uu yahay inaad macaamiil badan u hesho ganacsigaaga. Maadaama qarnigan 20aad uu suuragal ka dhigay in dadkii gebi ahaanba ay dhex joogaan internetka iyagoo isugu jira kuwa wax ka baranaya internetka oo arday ah, kuwa ka dhex shaqaysanaya iyo kuwa madadaalo u soo gala intaba. Hadda waad ila fahantayaan u maleynayaa. Su'aasha kale ayaa ah ganacsi yar ama mid weyn ayaan leeyahay ee ma u baahanahay inaan internetka ganacsigayga keeno. Okay, dabcan jawaabtu haa. Haddii aad ku guuldareysato inaad internetka keento ganacsigaaga waxaad u diyaar garowdaa sanadaha soo socda in ganacsigaagu hoos u dhac ballaaran ku imaan doono ugu dambeyn aad irdahaas ku dhufan doonto. Sababtana waa mid aan kor kuugu soo sheegay oo dadkii aad wax ka gadan lahaydba internetka ay dhex joogaan. Maxaa kuu diidaya inaad maqaalintaada internetka ku soo dhex tuurato si aad uga kalluumaysato? Waad mahadsantahay daawade. Haddii aad jeceshahay muuqaalo kale oo ganacsiga online-ka iyo sida lagu bilaabo ku saabsan fadlan nagu soo biir oo nagu xirnaaw. Mahadsanid.